assalaamu calaykum. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo aynu baranno aamusnaanta faa'iidada ku jirta. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo ay yidhaahdaan aamusnaantu ma wax la bartaa? Dabcan haa. Barashada waxaa loola jeedaa laylis iyo tababarasho joogtayn ah. Sidaas darteed waxaan ciwaankan u soo qaatay hadal ay dhihi jireen salafiintii wanaagsanaa. Waxaan aamusnaanta u baran jirnay sidaad hadalkaad u baratiin. Waayadan dambe waxaa meel kasta lagu qabtaa dowrooyin ama siminaaro lagu baranayo qaabka hadal jeedinta, sida dadka loola hadlo ama khudbad loo jeediyo, sida dadka loo saameeyo. Laakiin halkan waxaan uga hadlayaa haddii uu adal idmo aamusnaanta ulama jeedno in xaqa laga aamuso wanaag farista ama xumaan reebista, laakiin aamusnaanta in laga aamuso hadalka malaayacniga ah, kan baadilka ah, hadalka aan faa'iidada lahayn. Alle wuxuu muuminiintiisa liibaanay ku sifeeyey kuwa ka jeesta ama isaga taga hadalka baadilka ah. Alle wuxuu yidhi bismillaahi araxmaani araxiim qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaladiina hum cani illaqwi mucriduun. Ilaahay waxa uu leeyahay waxa liibaanay kuwa muuminiinta ah, kuwaasoo ah kuwa salaadooda ku khushuuca, ahna kuwa ka jeesta hadalka baadilka ah. Rasuulkuna waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut. Qofkii rumeeyey ilaahay iyo maalinka qiyaame ha ku hadlo hadal wanaagsan ama ha iska aamuso. Bal fiiri siduu rasuulku isku xidhay aamuskii caqiidada. Atlantico ayaa ah meesha ugu degan ee aan weligay arko. Ayuu yidhi Elin, waxaan noqday qof aad uga warqaba dunida aan ku nool yahay. Sannadkii 2013 khabiir ku takhasusay dhinaca biolojiga ah oo magaciisu ahaa Imke Coast waxa uu tijaabiyey saamaynta uu ku leeyahay sawaxanku maskaxda. 2 saacadood oo aamusnaan ah ayaa saameyn weyn ku yeelatay kobaca unugyada hippocampus oo ah qayb maskaxda qaabilsan dhinaca xasuusta, dhawaqa taraafikada, codadka, qaylada dheer iyo dhawaqa telefoonada ee baraha bulshada ka imanaya ayaa noqon kara qaar aan la dulqaadan karin. Balse weli sawaxan la'aan ayaa waxaa lala xidhiidhayaa kalinnimo, caajis ama xitaa murug. Intaas ayuu ku joogaa muuqaalkeena maanta.